sidee looga hortagi karaa dhagxaanta ku samaysma xamiitida? insha Allah maanta waxaan ka hadlaynaa haddii aad caafimaad qabto 8 shay oo ugu hortagi karto dhagxaantan iyo qaliimada loo sameeyo dadka xaaladan la dhibaataysan. ugu dambeyn waxaan talo siin doonaa dadka qaliimada loo sameeyay waxa la gudboon inay sameeyaan qaliinka kadib. aan ku hormarno 8 shay ee looga hortagi karo dhagxaantan. kow waxa waaye qofku inuu cuno cuntooyinka yacni qolofta leh oo dietary fibers waxaan loo yaqaan qofku inuu isticmaalo waa cuntooyinka hortiina ka muuqdo waaye waxyaabahan qamadiga rooti qamadi ka samaysan oo kala qamadiga naftirkiisa galeyda yacni digirta iyo qudaartan kala duwan afagaadhada iyo mataqaanaa tufaaxa iyo wax la midka ay ka mid yihiin iyo babaayga iyo wax la midka aad ay jirka muhiim u yihiin waxayna ka mid yihiin yacni cuntooyinkan qolofta leh ama dietary fibers wax loo yaqaano cuntooyinka qofka loo baahan yahay inuu isticmaalo. taas beddelkeedana qofka cuntooyinka dufinka badan leh yacni inuu iska ilaaliyo ayaa fiican. waxyaabaha aadka loo shiilay oo sida hortiina ka muuqata sawirka sida yacni hamburgerka oo yacni jibiska iyo waxyaabahaas lagu daray chickenka iyo wax la midka hilibka shiilan oo dufinka ah cuntada saliid cadayda faraha badan lagu kariyay yacni saliid cadayda beddelkeeda saliidda qofka oo isticmaalayo oo sheegi doonaa insha Allah. marka waxyaabahaas inuu qof aad iska ilaaliyo la rabaa. taas beddelkeedana cuntooyinka hortiina ka muuqda qofka inuu aad u isticmaalo waaye si uu ugu badbaado samaysanka dhagxaantaas maadaama cuntooyinka hortiina ka muuqata aysan lahayn wax dufin ah. inaa fahanteen ayaa rajaynaya. laba waxa waaye qofka in miisaankiisa oo kontaroolo oo qofka waxaa la dhahaa cayilan yacni oo baruurta ama xeerta ay ku badan tahay wuxuu u nugul yahay dhagxaantan ku samaysma xamiitida oo dufinkaas faraha badan leh yacni wuxuu isku aruursan karaa xamiitida halkaas ayuuna ku samayn karaa dhagxaan ama uga qayb qaadan karaa samaysanka dhagxaanta. marka waxaa fiican qofka inuu miisaankiisa yacni oo kontaroolo soo cuntada iska kontaroolaya sidoo kale jimicsi samaynayo. inaa fahanteen ayaa rajaynaya. sidoo kale qodobka saddexaad qofka in miisaanka uu iska rido. hadda waxaan dhahnay yacni cayilka inuu iska kontaroolo waaye. marka qodobka saddexaad waxay tahay qaabka uu kontaroolayo waaye macnaha waa wax isku xiran sida cashirka ugu dambeeyay aan kusoo sharaxnay waxaan dhahnay qofka miisaanka waa inuu si tartiib u ridaa. lama rabo hal mar inaad rido sababtoo haddaad degdeg u rido waxaa dhacaya ayaan dhahnay in xeer fara badan yacni jirka cadiin fara badan uu gubo ama uu shiilo. marka waa halis. waxaa fiican ayaa la dhahaa qofka si tartiib ah isbuucii qofka 1 kiilo ilaa 2 kiilo wax la mid ah inuu iska ridayaa fiican yacni uu si tartiib ah iska ridayaa fiican. inaa fahanteen ayaa rajaynaya. afar waxa waaye qofka in yacni cuntada jadwalkeeda uusan qaldin oo cuntada jadwal u samaysto sida hortiina ka muuqato. sababta waxay tahay qofka waxaa la dhahaa haddii yacni marna cunto uu cuno marna uu iska daayo saacado fara badan yacni maadaama xamiitigii yacni baylka wax loo yaqaano cashirka ugu dambeeya aan kusoo sharaxna ama cagaaryaha waxaan la hortiina ka muuqda maadaama uu galaayo ama lagu keedinayo yacni haddii saacado fara badan yacni uusan qofku waxba cunin ama jadwalkiisa uu qaldayn waxaa dhacaya inuu meesha isku aruursado oo meesha ku bato oo isku aruursado kadibna uu isku dhago kadibna uu ka qayb qaato samaysanka dhagxaanta. marka qofku waxaa fiican jadwalka cuntadiisa inuu hagaajiyo ayaa fiican. haddii uu hagaajin waayana waxaa dhacaya sida hortiina ku qoran. inaa fahanteen ayaa rajaynaya. 5 waxa waaye qofka inuu biyo fara badan cabo oo aad inuu biyo cabo ayaa loo baahan yahay 1 liitar ugu yaraan ama 2 liitar oo dadka ilmaha yarkay dadka waaweyn isku mid ma saa ogtiin caafimaad ahaan dadkana way kala duwan yihiin. marka celcelis ahaan yacni 2 liitar ayaa la dhahaa sida saxda ah laakiin qofka xitaa 1 liitar ama wax la mid haddii uu cabo ugu yaraan macnaha wax fiican waaye. dadka qaar ma cabaan hal galaas iyo wax la mid ayay cabaan oo liitar ma cabaan laakiin waa muhiim biyaha faraha badan leh aad ayay muhiim u yihiin. marka qofkan biyaha faraha badan leh inuu badsado yacni ayaa aad u fiican. 6 waxa waaye saliidan olivada loo yaqaano aad ayay muhiim u tahay oo inta badan bulshada saliidan cadayda hortiina ka muuqata ay isticmaalaan laakiin saliidan ayaa aad u fiican inaad cuntada iyo waxyaabahaas ku darsato oo dufin gaar ah ma lahan yacni oo jirka wax u dhimaaya. taas beddelkeedana sida hortiina ka muuqata waxayba caawisaa in yacni xamiitida baylka iyo wax la midka ama wixii soo galay ee degdeg ugu baxaan yacni ee faaruq noqoto yacni ayay ka caawisaa. marka waa saliid aad muhiim u ah bulshada inta badan ma isticmaalaan laakiin aad ayay muhiim u tahay saliidan
saliidda kale waa dufin yacni qofkana jirkiisa cholesterol fara badan ku keenaysa. marka midaan ayaa aada u fiican haddii ay isticmaashana aada ku caawinaysa. todoba waxa waaye qofka inuu sameeyo jimicsi fara badan oo saa ujeedaan yacni qofku waxaa la dhahaa 30 daqiiqo maalintii inuu sameeyo isbuucii dhanna ugu yaraan 5 maalin ka mid ah isbuuc 7 maalin macnaha 5 maalin ka mid ah inuu sameeyo ayaa fiican jimicsiga. oo marka horena si tartiib u bilaabo uusan boobsiin oo 5 daqiiqo saa ujeedaan horta inuu ku qoro 10 daqiiqo uu ku bilaabo kadib ugu dambeyn maalmo kadib 30 daqiiqo oo gaarsiiyo jimicsiga. marka jimicsiga kaliya ma ahan inaa gym aada ma ahan, socodoo noqon karaa oo rucleyn ama orodoo noqon karaa, dabaaloo noqon karaa, baaskiil wax lamid daawadeysoo noqon karaa. marka jimicsiga wuu kala duwan yahay, xerkabood ayuu noqon karaa. marka jimicsiga wuu fara badan yahay. marka 30 daqiiqo kamid ah maalinta inaad sameyso ayaa fiican. 8 waxa waaye cunista looska aada ayuu muhiim u yahay, gaar ahaan xamiitiga oo wuxuu nadiifiyaa ama caawiyaa xamiitadiisa ujeedaan sida hortiina ku qoran. marka 8daas waxyaabood ku dadaal insha Allah si aad ugu hortagto dhibaatadan ay ku keenaan dhagxaanta xamiitida. inaa fahanteen ayaa rajaynayaa. marka haddii qofku isku arko calaamadihii aan soo sheegnay cashirkeena ugu dambeeyay ama qaar ka mid ah kadibna baaris oo maro oo lagu arko xamiitidiisa inay dhagxaan ku jiraan, inkastoo dadka qaar yacni ayagoo xanuuno kale iska baaraya dhagxaantaas lagu arko, laakiin dhagxaantaas qofka yacni haddii ku jiraan uusan xanuun ku haynin wax dhib ah ma lahan oo qofka yacni qaliin wax looma sameeyo, qasab maaha qaliin loo sameeyo. laakiin dhagxaanta markay tubooyinka ay xiraan oo meesha wax soo maraayan ay xiraan ayaa ah marka qofka xanuun uu dareemayo. markaas ayaana ah marka qofku ku qasban yahay qaliin inuu sameeyo oo tubooyinka xiraan sida hortiina ku qoran. marka qaliinkan saa ujeedaan sida hortiina ku qoran 2 qaab ayaa loo sameeyaa: in qofka caadi loo furo oo meesha la jeexo, in qofka laparoscopic surgery waxa la sameeyo sida hortiina ka muuqata. oo qofka yacni tan ayaa fudud oo qofka marka qaliinka loo sameeyo saacad kadib gurigiisa ayuu aadi karaa. laakiin mid kale waxa waaye qaliin caadi ah oo meesha dhan la furaayo waaye. marka labada qaab waa la sameeyaa. marka saa ujeedaan xamiitida marka la jaro saa ujeedaan hadda fiidiyowga hortiina fiiriyo yacni waa laga maarmaa oo wax lagu keedinay maadadan baylka ama cagaariyaha toos. marka cagaariyaha beerka ayaa ka imaanaysa maadadan oo burburinta cuntada gaar ahaan dufinka qayb qaato, tubadan ay soo raacay mandhiciraha yar ay imaanaysa saa cashirka shalay ku sharaxnay. marka waa laga saaray hadda ujeedaan fiidiyowga hortiina xamiitidii. marka faa'iidada ugu weyn waxay ahayd in lagu keediyo oo markuu qofku wax dufin leh wax la oo cuno kadib cuntadii lagu burburiyo. hadda laakiin toos yacni tubada ay soo raacaysa maadadan marka cuntada la burburinayo. marka waa laga maarmaa saa ujeedaan oo wax saas muhiim sida xubnaha jirkeena oo kale oo wadnaha iyo beerkii kaliya kala ma ahan muhiim saas ma lahan. kaliya qofka markii laga saaro calaamadihii yar oo dareema ay kamid tahay caloosha mararka qaar inuu xanuun ka dareemo, mararka qaar shuban inuu dareemo, mararka qaar dibri inuu dareemo, xogaa dheefshiidkiisa qaldama laakiin waa la sixi karaa, daawooyinka kooban la siiyaa. marka maalmaha la qalano qofka xanuun yar ayuu ka dareemi karaa haddii qaliinka open surgery loo sameeyo yacni qaliinkan oo la furaayo meeshadii loo sameeyo xanuun yar ayuu dareemi karaa. daawooyin xanuun baabi'ay ayuu dhakhtarka ku siin doonaa. insha Allah inaa fahanteen ayaa rajaynayaa sida looga hortago noocyada qaliin oo loo sameeyo iyo qaliin kadib qofku wuxuu la kulmi karo iyo xalka waxa uu yahay. insha Allah taala cashirkeena inta soo koobeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.